taasi waa hubaal halyaygii axmed haddii looga dhigay hoggaan oo maxamudu noo habaynayo hawsha kale oo ciidamadu nabadda hubiyeen hariyo dharaar horumar gaaraya ilaahow hanaga hadlayn waxaase ku sareeyey hadalkayga seenadale madaxda loo saantay dunidoo samaanta jecel war Soomaali isu soo dhaweeyo sinjaar ka dhiga oo 18 gobol saacad wada casuma oo xumaanta ka saara bulshadeena sariyo baar darankayga macaali ma lama soo koobi karo waxaan aad taageeray Axmed Madoobe oo inoo soo baxay ashcuurtooda aad baa kacsanta maanta waxaan dareemayaa madaxweynaha doonaya inuu soo baxay waan ka taageersanahay runtii waxa weeye siyaasaddu waa wabi xagaawanan wax ajaayib weeye ani waxaan leeyahay marka aniga fikradayda ahaan aan ka hadlayaa in Soomaali ay midowdo oo isreebreebkan siyaasadda maaragtay dawladaha shisheeye waxaas aan iska maaragtay aan iska kaashano oo midnimadeena iyo isku duubnideena iyo Soomaalinimada inaan ogaano iyo islaamnimadana u horeyso intaas aan leeyahay magacayga Ismaaciil Maxamuud Jaamac leeyahay aad iyo aad baan maanta ugu faraxsanahay wixii ka dhacay magaalada Kismaayo waxaan aad u soo dhaweynaa madaxweynaha cusub horeyna u ahaa madaxweynihii hore Axmed Maxamed Islaan waxaan leenahay hambaliyo guuleysta hore u socda aad iyo aad baan ugu hambaliyeynaynaa waxaan leenahay guul iyo gobonnimo iyo meesha waxa ka dhacay wax aad iyo aad loogu farxo rabbil caalamiin halkan waxaan rabaa inaan hambaliyo uga diro madaxweynaha cusub ee galmudug Jubbaland mudane Axmed Islaan oo ah madaxweyne xaq ahaa oo lagu doortay magaalada Kismaayo runtii aad iyo aad ayaa shucuurtaydu ku kacsan tahay lama soo koobi karo waxaan weeye taageeradayadu maanta waxa weeye reer garow waa u jeedaanin aad iyo aad waxaan leenahay shacabka reer Jubbaland isku tiirsanaada horeyna u socda magacaygu waa Cabdulqaadir Maxamed waxaan ahay caaqil reer Buntland waxaan hambaliyeynayaa doorashada ka dhacday Jubbaland marka hore ilaahay maadi waxaan ilaahay uga baryayaa nabadgelyo waxaan kula dardaarmayaa inay ku dadaalaan qarannimadooda iyo dawladnimadooda inay iska ilaaliyaan qalaanqal iyo munaafaqad iyo haddii alla waa kore wixii wax u geysanaya inay ka taxadiraan waxaan u hambaliyeynaynaa dhammaan reer Buntland oo arkaysaan waxa halka la isugu yimi munaasabadda balaaran oo lagu taageerayo Jubbaland waxaan aad u salaamayaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Ogaas Caabi Mahad Caabi waxaan aad ugu faraxsanahay doorashada ka dhacday maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe karti iyo karaama ayaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa shacab weynaha reer Jubbaland aad iyo aad baa ugu mahadcelinayaa Jubbaland waa Puntlandna waa Jubbaland hambaliyo maanta aad baa ugu faraxsanahay guushii ay gaareen dhammaan ummadda reer Jubbaland waan u hambaliyeynayaa madaxweyne Axmed Maxamed Islaan Madoobe guusha maanta Jubbaland ay gaareen maaha guul ay gaareen ummadda reer Jubbaland kaliya waa guul ay gaareen ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxa leenahay hambaliyo waxa dooratay qofkii mudnaa qofkii maanta ummadda Soomaaliyeed meesha ay taagan tahay ka saari lahaa doorateen waxa leenahay hambaliyo aad iyo aad buu dareenka iyagu waxa weeye u kacsan yahay hambaliyaan diraynaa marka koowaad waxaan leenahay madaxweynaha xaq ah oo la doortay saacadii hadda la soo dhaafay hambaliyaan leenahay waxaanu leenahay si xaqa iyo sifa xaqa iyo mandate saxaba ninka lagu doortay waa madaxweynaha xaqa ee Jubbaland sharciga iyo dastuurka ku qotoma waxaanu leenahay ummadda Soomaaliyeed dhammaan meel kasta ay joogaan waxaanu leenahay hambaliyo waa in lagu taageeraa waxaanu leenahay waa maalin taariikhi ah oo aad iyo aad u qurux badan oo doorasho xaq ah oo xalaal ah oo waxa weeye xaqa waafaqsan ay ka dhacday waxa weeye maamul goboleedka Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo waxaanu leenahay waa madaxweynaha xaqa ahaa waxa weeye muddo badan ay sugayeen ummadda Soomaaliyeed in doorasho xaqa oo xalaal ah ay halkaas ka dhacdo waxaan leeyahay cidii arinta ka soo horjeeda waxaan leeyahay muwaadin maaha waxaan leeyahay danta Soomaaliyeed
iyo midnimada Soomaaliyeed wax ka cid ka shaqeynaysa maaha waxaan leenahay mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba waxaanu leenahay ummadda Soomaaliyeed hambalyo gaar ahaan ummadda reer Jubbaland hambalyo waxaanu leenahay ammaanka iyo barwaaqada iyo baraaraha iyo horumarka aad gaadheen Allah idin siyaadiyo annaguna waa idinku garab taaganahay waxaanu leenahay ummadda reer Jubbaland waxaanu leenahay awalba waxaad haydeen ummad wax way isku duuban cadawga meel uga soo jeeda midnimadooda wax way gacanta isku haysta horumarkooda wax way aad iyo aad wax way u xigsada haddana waxaanu leenahay horumarka aad gaadheen waa idinku taageeraynaa waligayana waan idinku taageeri doonaa aad iyo aad baan u mahadsantiin dhammaantiin Jubbaland hana qaadayo taasi waa hubaal halyaygii Axmed hadii looga dhigay hoggaan oo Maxamuud noo habaynayo hawsha kale oo ciidamadu nabadda hubiyeen hariyo dharaar horumar gaaraya ilaahow hanaga halayn waxaase ku sareeyay hadalkayga seenadaale madaxda loo saantay dunidoo samaanta jecel war Soomaaliisu soo dhaweeyo sinjaar ka dhiga oo 18 gobol saacad wada casuma oo xumaanta ka saara bulshadeena saliyo baar